Assalaamu calaykum. Dabinka lacagta cryptocurrency waxaa jiray gabay Ingiriis ah oo u dhignaa sida tan. Alle wuxuu abuuray bini'aadamkuna wuxuu abuuray lacag. Lacagtuna waxay abuurtay waali. Marka waa maxay lacag? Lacagtu waa jeex warqad ah taasoo ka baxday geedaha, taas oo bedeshay ama waashay bini'aadamka. Muddo ma aan fahansanayn gabaygan iyo macnihiisa oo xataa maan ogeyn in warqadaha laga sameeyo geedaha. Sanooyin kadib ayaan ogaaday in warqadda asalkeedu ay ka timid geedaha. Wabiga biyihiisa waxay ka soo burqadaan hal ilbiyood ama in ka badan oo isku biirbiira inta ay ku jiraan qulqulka koobaad, kadibna sii kala baxa, mararka qaarna dib isugu soo urura si ay ugu dhamaadaan hal bar dhamaad. Qaabkan uu u socdo wabiga ayaa waxa loo adeegsadaa qaabka qulqulka lacagta aynu maanta isticmaalno dhammaanteed. Lacagta aan isticmaalno ayaa soo martay heerar kala duwan iyadoo oo jirtay xilli bini'aadamku aanu u baahnayn isticmaalka lacag, maadaama wax walba oo asaasi u ahaa nolosha lagu heli karay si fudud oo aan u baahnayn adeegsiga lacag noocay doontaba ha noqotee. Kadib markii aynu la qabsanay isticmaalka lacagta warqadda ka samaysan oo lagu jaangooyay qiimo leh sees ku fadhiya aragti u dhigma waxa lagu kala bedelanayo si ay u fududaato. Kala bedelaashadu ayaa waxyaabaha daruuriga ah ee ku xiran nolosha dadka oo ayna booskana kaga bixin isticmaalka lacagihii ku fadhiyay qiimaha adag sida dahabka, macdanaha kala duwan iyo dhammaan wax walba oo qiimo wanaagsan ku fadhiyay. Dadkuna fahansanaa qiimahooda, muhiimadooda iyo isticmaalna ay fahansanaayeen ayaa muddo kadib isbedeshay. Waa lacagtii warqadda ahayd booskana kala baxday wax walba oo dadku muhiim u arkayeen, sababtayna in si fudud loo maamulo nolosha dadyow badan oo aynu ku xirnaan jiray noloshooda isticmaalka lacagaha ka samaysan warqadda, maadaama warqadda ciddii daabacdaa ama ilaalisaana ay ku yeelanayso awoodda ugu badan. In la helo lacagta warqadaha ayaa noqotay in loo maro wadooyin kala duwan, sida in dadka qaar toos u soo gaaro qulqulka, halka dadka qaarna ay noqdaan kuwa hela in kooban oo saxaabada buuxin karta. Tusaale, biyaha wabiga ayaa ah mid socda, dadkuna siyaabo kala duwan u heli kara biyahaas socda oo isku mid ma aha qofka inta uu tuumba gashto wabiga kana waraabsado beer. Qofna in uu gaari ka haysto ayuu ka soo qaadan karaa 200 ilaa 300 oo litir, halka qof kale uu saxaabadiisa uga cabo in yar. Kani waa tusaale waana habka lacagta dunida taala loo maamulo. Waxaynu aaminsanahay in adduunka aakhiraba uu Allah subhanahu wa ta'ala na siiyo nolol wanaagsan, taasina kama marna lacagta. oo lacagtu sida wanaagsan qofka ku soo gashay waa barako iyo wanaag. Waa qof awooda in uu ka sii bixiyo sake iyo sadaqaba si ummadda kale ee uu la nool yahay ula qaybsado. Waana waajib qofku inuu ku dadaalo sidii uu wanaajin lahaa labadiisa guri waa adduunka aakhire. Dadkuna inta ay hanti tabcadaan ma ahan wax dambi ah ee hantidu waa shay muhiim u ah nolosha xilligan, laakiin maanta waxaa shaki inoogu jira in ay aad u badan tahay habka lagu sameeyo lacagaha oo noqday wadooyin aan wanaagsanayn badankooda. Midaasina waxay dhalisay inay ka guurto qofkii farxadda nolosha iskuna mashquuliya waxyaabaha qaar oo kooban oo ay goyso lacagtaas inta uu nool yahay qofkaas oo iska ilaawaya nolosha aakhiro. Markaan ka soo tagno lacagaha warqadaha ah, kuwa tirooyinka diiwaan gashan ee ay bangiyada iyo hay'adaha dhaqaaluhu maamulaan isticmaalaana iyo kuwa la midka ahba waxaa sanadihii dambe ku soo kordhay lacago lagu tilmaamay in lagu samayn karo maalgashi ammaano ah. Qofkuna macquul tahay inuu helo faa'iido badan marka ay kor u kacayso marna hoos u dhacdo. Marka ay kor u dhaqaaqdo qiimaheeda, qofku waxa macquul ah inuu sameeyo lacag badan, halka marka ay hoos u dhacdo qofka uu khasaarayo. Waa qamaarka oo kale, laakiin gacantaada aan ku jirin ciyaartiisa. Dabcan anigu ma yihi dhaqaalayahan ama caalim dhanka diinta islaamka ah oo ku tilmaami kara xaaraan ama xalaal lacagaha noocan waxay yihiin, laakiin damiirkaygu waxa uu ii tilmaamay in ayna ahayn wax wanaagsan in aan sugaal u gashid inta uu qof kale ka khasaarayo lacagihiisa si aad adigu u faa'iidid. Ama haddaynu sidaa ahayn, waxaa shaki badan igu dhaliyay halka ay lacagahan badan ka imaadaan ay ka soo qulqulaan, maadaama muhiim ay tahay in ay jirto il ay ka soo burqato sida wabiga. Sidaas darteed waxaan baaritaan ku sameeyay lacagta ugu caansan uguna horeysa lacagaha cryptocurrency-ga oo ah Bitcoin, oo uu sameeyay qofna aan la garanaynin weli qofka uu yahay oo lagu magacaabo Satoshi Nakamoto. Intiina badan aad maqasheen. Waxaa muhiim ah in tirooyinka aan isticmaalno si aan u ogaano waxa ku dhex qarsoon iyo sida lacagta aan la taaban karin dadka badankiisu ku fikiraan in ay tahay lacagta mustaqbalka iyo sida ay ku aqbaleen oo ay ku rumaysteen. Xasuusaha hadda waxaan ku yiri waxaan isticmaali doonaa tirooyinka iyo magaca Satoshi Nakamoto. Dabcan haddii aad ka mid tahay dadka isticmaala lacagtan, waxaa macquul ah in aad igu raacin fikirkaygan, laakiin waxaa muhiim ku ah in aad adigu una qofna xakameyn shucuurtaada markaana aad raadisid runta iyo habka ugu wanaagsan ee aad ugu noolaan kartid dhulkan. Markaan ku sameeyay baaritaan
waxa iga soo baxay xogo kala duwan oo aad u foolxun laakiin haddaan kula wadaago in yar oo aad fahmi kartid lana da'ah caqligaaga kadibna aragtida aad doontid aad ka qaadan doontid aad ka qaadan kartid ama iska tin kartid oo markasta go'aanka adiga ayaa leh ama aad wadi kartid ugu horeyn magaca lacagta ee Bitcoin loona soo gaabiyay BTC ayaynu u baahanaynaa in aan u marno wadooyin kala duwan BTC uma baahna furfurid badan oo waa tirada 3 xaraf laakiin Bitcoin maxay tahay qofka sameeyayna yuu yahay waxaynu adeegsan doonaa inaynu ku furfurno turubka tarot waa ciyaar dadka lagu madadaaliyo oo loo yaqaan turubka tarot tirada 0 waxay ku jirtaa booska doqonka ama dabaalka waxa ayna soo jirtay muddo fog waxay ku dhisan tahay nooc kamid ah sixirka Kabbala waxa soo saartay kana qayb qaadatay faafitaankeedii kaniisadda Vaticanka haddaynu ku horeyno Bitcoin kelmadda Bitcoin waxay ka kooban tahay 7 xaraf tirada 7 turubka tarotka waxa uu matalaa gaari faraska ayaa u taagan isxakamaynta iyo go'aan qaadashada haddii aynu eegno cidda soo saartay Bitcoin waa Satoshi Nakamoto ayaa isna wuxuu ka kooban yahay 15 xaraf tirada 15 turubka tarotka waxa uu matalaa shaydaanka ayaa u taagan isaguna damaca badan iyo duusashada labadan tiro marka ay isbiirsadaan ama ay kulmaan waxa isku bedeshaa mid halaag badan maadaama gaari farasku uu yahay is-ilaalin iyo go'aan qaadasho marka uu la midooba shaydaanka waxa meesha ka baxaya isxakamayntii iyo go'aanadii qofka shaydaanka ayaa qofka ka dhaadhiciya in uu isagu xakamaynta hayo laakiin waxa uu diyaarsan qorshayaal kale oo uu rabo in uu ku fusheedo qofkaasi waxa macquul ah qofku inuu ku haminayo haddii uu helo lacag badan oo degdeg ah inuu ku filin doono qorshayaal noloshiisa mustaqbalka ah ee u baahan lacagta taasi marka waxa ay u horseedaysaa in uu ka bixo jidkii uu marayay oo waxa uu noqonayaa sida qof indhool ah oo wadaya gaari akhrinta turubka tarot ayaa sameynaysa micnayaal kala duwan marka ay isku aadaan labadan tiro ee kala ah 7 iyo 15 waa inta ka koobnaayeen magacii ninkii sameeyay iyo Bitcoin macnaha ugu muhiimsan waa inuu qofku yahay mid ku fikira helida awood ballaaran hami badan iyo rabitaano kala duwan taas oo qofka ka dhigaysa mid ku dhaca daminada uu shaydaanku dhigay tani ayaa ka dhigan in maanka qofka ay ka dhex guuxayso dhawaaq iyo hamiga lacag uu heli doono marka uu maalgashigiisu kor u kaco ama cabsi iyo walwal uu dareemayo haddii uu hoos u dhaco waana muhiimadda ugu weyn ee qofka sidaa ku mashquula oo marna ku fikira uuna galo hami badan marna uu ka fikiro khasaaro lacagtan ayaa ku soo biirtay caalamka January 2009 oo ka dhigan 01.2 oo la micno ah hal loo geeyay 2 loo geeyay eber loo geeyay eber loo geeyay 9 oo la micno ah ama ay la mid tahay kaliya 12 waxay la sii micno tahay hal loo geeyay hal waa 3 haddii aad barnaamijyadiinii hore ee sirta tirooyinka aad horey u soo daawatay waad fahmi kartaa waxaan ka sheekeynayno ama taariikhdu marka ay ahayd 9 January 2009 oo ka dhigan 9.1.2 eber 9 oo la micno ah 9 loo geeyay hal loo geeyay 2 loo geeyay 2 eber loo geeyay 9 oo la micno ah ama u sii dhiganta 21 lafteedu waxay noqonaysaa hal 2 loo geeyay hal oo la micno ah 3 u fiirso labada goorba waxay soo baxday 3 waxayna ku xadidan tahay tiradeeda soo saaris iyo ku dhex wareega suuqaba 21 milyan 2 loo geeyay hal still waa 3 isla 21 milyan haddii aad eegto markaynu kala saarno xisaabtan waxay noqonaysaa 2 loo geeyay hal loo geeyay wada eber still isku wadaagay waxay taagan tahay wali halkeedii oo 3 bay taagan tahay isweydii tirada 3 maxaa maxsuul u noqdaa ama maxaa maxsuulka oo u noqdaa lambarka 3 ama waxaad ka fikiraysaa in ay tahay wax iska dhacay oo aan laga soo baaraandegin يعني waxaan laga soo shaqeyn oo iska dhacay ayaad iska aamintay run ahaantii kuma dhihi karo lacagtan waxa abuuray qofkaas ama shirkadaas magacaas leh laakiin waxaan hubaa in uuna wax shaqo ah ku lahayn qofka lagu magacaabo Satoshi Nakamoto lacagtan sideedaba waxa ay heerkan ku soo gaartay waa buunbuunin iyo dad gaar ah oo ku hela dhaqaalo aad u badan xayisiiskeeda iyagoo ku sii dhiirigelinaya maalgashigeeda dadka kale dadkan ayaa ku xidhan dad aad u tiro badan Bitcoin kadib waxa aad u soo batay lacagahan lagu magacaabo cryptocurrency-ga oo maanta tiradoodu ka badan tahay ilaa 20,000 oo nooc laakiin mustaqbalka dhow ama mid fogba sida ay wax isu bedeli doonaan cidna ma oga sida inoo muuqata waxaynu aragnaa inuu gabagaba yahay ama uu dabargo'i ku dhow yahay isticmaalka lacagta ka samaysan waraaqaha taasoo fududayn doonta in dadku si sahlan loo maamulo maadaama lacagta aan waraaqadaha ka samaysnayn la xakameyn karo dadka waxay ku iibsanayaan ama waxa ay ku sameynayaan lacagta ay aaminsan yihiin in iyagu leeyihiin dabcan lama xakameyn karo
dunidu waxa ay u sii dhaqaaqaysaa maalinba maalinta ka dambaysa inuu soo wajaho dhaqaale burburkii ugu weynaa inta la xasuusto taariikhda oo la qorsheeyay waqtiyo hore iyada oo maantana dunida ay ka jiraan dhaqaale la'aan maadaama aynu noolnahay xilligii ay ugu hantida badnayd inta aynu ogaan karno sidoo kalena ugu liidatay nolosha taasi oo markhaati kaaga filan in si kastoo hantida u badan tahay ayna keenin farxad iyo raynrayn haddii aan lagu sameyn si wanaagsan loona isticmaalin si wanaagsan bini'aadamku waxa uu ku socdaa wadadii halaaga iyo in ay caabudaan beenaalaha iyo dulleysiga dadka caalamka